الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaa sharaf weyn ii ah inaan ku soo dhaweeyno dalka Algeria madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo uga bilaawatay booqasho rasmi ah dalka Algeria caasimadiisa Algiers sidoo kale waxaa sharaf weyn inoo ah inuu booqasho noogu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii ku helinayay booqashadiisa kuwaasoo kala ah wasiirka arrimaha dibadda wasiirka difaaca wasiirka waxbarashada wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasiirka batroolka waxaa sidoo kale sharaf inoo ah inaan dib u yigleeladii safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Algeria inaan warbixin guud ku siiyay safaaradda iyo waxyaabihii uu qabsoomay muddadii aan joogay dalka Algeria taasoo ah muddo kooban waxyaabaha inoo qabsoomay ee safaaradda u qabsoomay waxaa ka mid ah in ilaa iyo hadda 11 wafdi ay yimaadeen dalkan booqasho rasmi ay ku yimaadeen in 110 arday oo Soomaaliyeed ee dalkan deeq waxbarasho ka helaan sidoo kale waxaan cirib tirnay inaan la dagaalano tahriibka oo aad ugu badnaa markii aan imaanayay dalkan waxaa sidoo kale booqasho ku yimid wasiirka arrimaha dibadda waxaana saxiixnay heshiisyo ilaa iyo 3 heshiis ayaan wada saxiixnay dawladda Algeria ugu dambeyn booqashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa lagu kala saxiixday ilaa 6 heshiisyadaas oo kala ah in baasaboorka diblomaasiga uu noqdo free ama dalkan lagu soo gali karo visa la'aan ayagana sidaas si lamada ay ku gali karaan dalka Soomaaliya visa la'aan sidoo kale waxaa la saxiixay heshiis dhoofka xoolaha ah sidoo kale waxaa la saxiixay heshiis badqabka xoolaha Soomaaliya sidoo kale waxaa la saxiixay heshiis batroolka iyo macdanta sidoo kale waxaa la saxiixay heshiis waxbarasho ugu dambeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka wuxuu nagu siiyay tacliimaad inaan si laba jibaarno dadaalada aan wadno waxaana safaaraddu ka shaqeysay muddadii koobneed aan joogay inaan kor u qaadno cilaaqaadka labada dawladood taasoo tusaale u ah in dalka Algeria ugu dambeysay muddo hore inuu booqasho rasmi ku yimaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya